haweenka jahliyada gobolka Cayn ee dalka Canada ayaa maanta deeq lacageed waxa ay soo gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolka Cayn. deeqdani oo dhamayd ku dhawaad $1,000 oo lacagta Mareykanka ah ayaa waxa loo qaybiyay in ka badan 30 qoys kuwaasi oo laga soo xulay waayeel agoomaha barakacayaasha iyo waliba dad kale oo danyara. deeqdani ayaa maanta dadkaasi ka kooban 30 qoys ee isugu jira danyarta agoomaha iyo barakacayaasha waxaa loogu qaybiyay xaafadaha waqooyi ee magaalada Buuhoodle. Cabdicasiis Sheekh Fakara oo deeqdaasi lagu soo hagaajiyay isla markaasina dadka gaarsiiyay ayaa ka warbixinaya meesha deeqdani ka timi iyo cidda ay u qaybiyeen. dadkan oo qabanayna waa 30 qoys waxay soo gaarsiiyay gabdho reer Buuhoodle oo reer Canada jooga oo reer Buuhoodle waa soo gaarsiiyay deeqda $950 way ahayd 30 qoys baan gaarsiinay walaalaha kale muslimiinta ah ee deegaanka u dhashay iyo kuwa kale walaalaha Soomaaliyeed waxaa la sheegay badarkan xaaladooda hal soo caawiyo laga warhayo. dadka deeqda la soo gaarsiiyay ayaa u mahad celiyay walaalahooda u soo diray deeqdaani iyagoo sidoo kale ugu baaqay inay u soo badiyaan. waa kuwan qaar ka mid ah oo muurtaasi ka hadla. anigoo ku hadlaya dadka kan magaranaysa la soo gaarsiiyay hawsha iyo daalada mucaawimada waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay u gargaaro inuu ilaahay siiyo muslim iyo mushrik iyo munaafiq iyo dadka ay la joogaan ay la nool yihiin sharkooda ilaahay inuu ka nabadgeliyo khayrkoodana ilaahay inuu siiyo. ugu mahadnaqaynaa ilaahay ha garab galo kuwa noo keenay iyo kuwa ka soo diray iyo kuwa nasiiyayba ilaahay ha garab galo insha Allah bidmillaahi kariim waxsan iyo khayr ayaan u rajaynaynaa. idamka ilaahay anana Allah nagu anfaco iyagana Allahna ha ugu dambi dhaafo risqa Allah ugu kordhiyo Allah kaga qabto cadawgoodan Allah kaga xayiro. marka la isku soo wada duubo deeqdani la soo gaarsiiyay dadkani danyarta ah ayaa si weyn ay u soo dhaweeyeen waxa ayna ku soo beegmaysaa xilli laga soo baxay abaar xun oo dadka iyo dunyada saameyn ku yeelatay oo ka dhacday guud ahaan dalka Soomaaliya. inkastoo gobolka Cayn abaartaasi ay si xoog leh u saameysay isla markaana saameynteedii wali ay ka sii muuqato bulshada. Khadar Cawl Ismaaciil, Telefishinka Universal, Buuhoodle.